tali waan kula talinay talada maqaadan kusoo dhawaada. ما شاء الله جزاه الله خيرا وبارك الله فيك وزادك الله التقوى شيخنا الفاضل الشيخ محمود شيخ حسن أبو دلحة. إلهي سبحانه وتعالى كلمة سياد نوغا هرمريسي أنا جاي لكوي رغن جيريا كوي عمل فلا إلهي سبحانه وتعالى هذيك نميتين حسنات كاركو سارو والله قال كسو قالوا وحين كوك جرنا أن كل تلي تلو مقادا يا شيخ محمود شيخ حسن أبو دلحة وعاد كسو درستان أبو دلحة 1@gmail.com ما أنا كسو سار لي إن شاء الله بإذن الله الكريم ayaa la idinka jawaabi doonaa haddii ilaahay yiraahdo saarneeda soo socota waqtigii maadaama salaadu uu siyar bedelay meeshii aynu ka soo geli jirnay 2 pm central amaba maxaan ku yiraahdaayay 8 pm UK waxay noqon doontaa insha Allah biidnillaahi kariim 3 pm central amaba maxaan ku yiraahdaayay 9 pm UK ama Yurubta kale waxay noqon doontaa 10 pm insha Allah biidnillaahi kariim makane waxay noqon doontaa 12ka habeenimo insha Allah biidnillaahi kariim. شيخنا الفاضل سائلك ugu horeeya ee talaraadiska ah waxaan u maleynayaa guurka waxa la yiraahdo buu badoonayaa macnihiisii oo wuxuu yiri bariyahan dambe guurkii wax badan baa ka khaldan uu leeyahay wuxuu yiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wuxuu sheekh Abu Dalxa muhiimadda guurku amaba xigmadda ku jirta guurku yani waa maxaa loo guursadaa mahamiyuun baa loo guursadaa ama sabaahi jinsi يعني مهمة داسي أي دنيا بلنا ولا لها يعني جاب نشر حذف وليه هي سائلكني فليتفضل مشكورا وماجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. وسؤال هذه آدو قيمة بضن وأنا سؤال هذه آدو بلارا وأنا سؤال كتب لقاء اللي في وأنا سؤال انتاس أو حلقات يا محاضرة أباهن حديث عن سؤال جوابت لصاء أروريا صاقبة هرتوا فطرة إلهية ووحي إلهي غريزة إلهي أوضتك قبير تبارك وتعالى بما أن بني آدمكو أما مخلوق لمجين سبعيهين وبداية آدم يحاوب الله أبوري إلى أمد أي كتماتنا أي لمجين سيهين واللب يددقيهين lab iyo dhadigaana mid walba gariize iyo shahwo lagu abuuray taasi horta waxa weeyaan waa xikma ilaahiya tabaaraka jalla wa ala oo waxa weeyaan baahida insaanka ku abuuran ee qofkani maalintuu qaan gaaro dareenka uu dareemayo inuu jinsi kale uu la noolaado horta waa mas'alo keenaysa sadarada waxa leeyahay markoodaad horta وضرورة ومسألة أي ضرورة أي كينيسو وانا حكمة إلهي تبارك وتعالى مركو لبدا جنسي وأبوري تاوى مد اللباد وحاويان وحلو يقانو إلا الترمو ومدو أي بلطو بمعنى هدوسا نقور تشيرين نياط الله إذا أذيك سائلك سؤال شيء ويدين يعاوى مطال الله ما يمال دلسين كان الويدين سؤال فقيرك عبدي أدونك المسكين ما دلن لها ما يمدشين سيدا درادت قورك حكمده كجرتنا وحاوي نسلك إنو بطو وفرع إنو بطو وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا شعوب إيو قريبا مركا إلا سيكا النغضو تانا وقلب كلاو ميش كجروي قلب كسدحادو ميش كجرا سونا وحاويان إن الأمد قفك الامتحامه وإلمه وامتحان وقورك وامتحان ونولشا ضمبا امتحان كنولشا قيده ذلك الدول أي قوركنا قيد كيهي آيات قرآننا أي كسر دقين أذيك السائلك وحال الربائين لقوا أغاده بل إن الأمر كألف لشيء إيا إنك له بل إن الحقوق لقبضا سيسي إيا إنا ننكو قبضو ننك حقوق لشيء أي سيسي ومسألة جنة إيا النار أي كبر ميان تاسنا ومسألة الامتحان والاختبار مدك له أسبابها الجنة اللي قال قيب كمدوي كما سوقات جبربا نينك هذا الجنة كقال خاضي النقشة هذا خاضي الرأي تاي نينبا الجنة اللي قري قبل سي حاس كان كولا إحسانك يا وناق يا حقوق وقدريو أيوب الجنة كقاليا إذا هو وسائل الجنة اللي قاله أما النار اللي قاله
ama imtixaan intii lagugu imtixaamo qofka imtixaanka uu ku dhici karo ama imtixaanka uu ku baasi karo intaa waxaa dheer awlaada laga helayo guurka uu ka imaanaya ciddu Allah ugu talagalay ya ayagana dhurriyo saalixa ah ay noqon karaan oo adigana kugu soo duceeya marka waa qayb camalkaaga kamida hadbana juhdigaad ka bixiso ilaahayna suu kugu waafajiyana ay ku xiran tahay biidnillahi tabaaraka wa tacaala indhaha in la laabto ayaa kamida zinadu ayna meesha ayna badanin ama zina meesha inayna soo gelin walidaalika walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina bimacnaa muqadimaadkeeda iyo hordhaceeda iyo indhaha oo laabataan iyo hadalka oo la jilcinin oo dumarka ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlay wakiila falaa takhdacna bilqowl hadalka ha jilcinina fayatmaca alladii fii qalbihi marad nin qalbiga ka jiran baa laga yaabaa inuu qoonsado kadibna qalbiga ay zine iyo xumaan ay u gasho ilaahay tabaaraka wa tacaala waa mid kalahaa waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim ragga waxaad ku dhahdaa indhahooda ha laabteen wayaxfaduu furuujahum dumarkana sidoo kale waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna marka zinadu inay meesha ka baxdo oo ummaddu ayna zinada iyo xumaanta ayna cudurrada adag ay ka dhalanayaan nasliguna iyo farcuna uusan hallaabin oo wacalle iyo waxaan aabbahood la garanayn uusan meesha ka imaanin guurka xikimka waxaa kaloo ku jira wax loo yaqaana sakan ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها qofka inuu dego oo maskaxdiisu degto oo caqligiisu dego oo caafimaadkiisu dego qofka guurka ka daaha ama aan guursanin xataa caafimaadkiisa iyo xubnihiisa iyo dhabarkiisa iyo xaglahiisa iyo maskaxdiisu meelo badan bay ku maqan yihiin xanuuno badan iyo cudurro badan ayaa shahwadan aruuraysa laga qaadaa marka guurku waa caafimaad oo guurku waa raaxo oo guurku waa sakan oo guurku waa deganaan oo guurku waa itmiinaan oo guurku waa raxmo oo guurku waa mawadda marka waxaasoo dhan iyo wax ka badanba guurka waa laga helaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryayaa inuuna waafajiyey su-aasha jawaabteeda haddii aan garan marrayna waa cilmi la-aanta iyo aqoonta ilaahay baa garanaya wallahu aclam